عاد راحيسن راحد ayaan kaaga digaya ilaahay adamadiisu ma raaxaysaane war ninka muuminka caalamka sidoo raaxaysan ninka muuminka waa maalinka waxa uu rumowday mid ka mid ah riyooyinkiisii Maxamed Yare waa wiilkii yaraa ee dhawaanahan qabsada baraha bulshada Maxamed Yare ayaa markii ugu horeysay la kulansiiyay Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa isagoo farxad ay ka tambadisay isla markaana ku farxay inuu garab istaago Sheekh Maxamed Cabdi Umal waxa uu ka soo muuqday muuqaal qabsada baraha bulshada Maxamed Yare oo ku caan baxay xifdinta khudbadaha Sheekh Xuseen Cali Jabuuti ayaa waxa mid ka mid ah khudbadaha uu xifdiyay waxa uu ka horjeediyay Sheekh Maxamed Cabdi Umal dad badan ayaa u riyaaqay isla markaana ku farxay in Maxamed uu la kulmayo culimada waaweyn isla markaana culimada qaar ay dhiirigelinayaan isaga Maxamed oo ku noolaa markii hore dhulmiya waxa uu yimid isla markaana la keenay goob uu wax ka baran karo isla markaana magaala taasna waxa uu sahashay Maxamed in goob waxbarasho la geeyo Maxamed wax badan waxa uu xifdiyay khudbadaha hore u jeediyay Sheekh Xuseen Cali Jabuuti qaabka khudbadahaas Maxamed uu xifdiyana waxay noqdeen si weyn dadku inay u hadalhayaan maalmihii la soo dhaafay dadka qaar waxay tilmaamayeen isla markaana Maxamed Yare ay ku sifeynayeen shakhsi wanaagsan hami sidoo kale yool wanaagsan hiigsanaya waxay lahaayeen waa wiil yar isla markaana waxa uu ku dadaalayaa inuu ka rumeeyo riyooyinkiisa oo qayb ay ka yihiin inuu noqdo caalim weyn isla markaana dadka gaarsiiyo diinta Maxamed Yare khudbadaha uu xifdiyay hore u jeediyay Sheekh Xuseen Cali Jabuuti waxay ahaayeen kuwo sidoodii qaarkood u keenay isla markaana dadka qaar ay lahaayeen wiilkan maasha Allah waa uu maskax fudud yahay ama xifdintiisu way wanaagsan tahay dhiirigelinta Maxamed dadku uu ka helayo waxay keentay in dadka qaarkood ay booqdaan isla markaana hadiyooyin ay guddoonsiiyaan laakiin Maxamed dhulkii miyiga ahaa hadda waa uu ka yimid oo waxa uu ku sugan yahay meel uu wax uu ka baran karo dadka qaarna waxay leeyihiin waxa habboon Maxamed Yare in xagga diinta culays uu saaro ama xaggaasi uu xoog u saaro si uu u noqdo caalim wanaagsan laakiin sirriyada iyo hamiga Maxamed uu leeyahay waa mid sareeya halka wiilasha asaagiisa qaarkood ay xifdiyaan heesaha ama suugaanta ama sidoo kale wax noloshooda iyo mustaqbalkooda aan u fiicneen laakiinse Maxamed waxa uu xifdiyay waxyaabo wanaagsan isla markaana uu horseedi karaa in wadada wanaagsan qeyrka ku dheehan uu cagta saaro ku xirno mar waliba Sharmarka Media